Guddida ka hortagga xanuunka coronavirus ayaa deeqdan 1200 oo qoys oo raashin soo gaarsiisay degmada Celifina gobolka Sanaag. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda jidadka Soomaaliland Sahal Maxamed Jaamac barsaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Timbaro ayaa deeqdan raashin ku wareejiyay maamulka degmada Celifina iyo kula dardaarmay in la gaarsiiyo bulshadii loogu talagalay. maanta aan halkan u joognaa deeqdii ay soo gaarsiisay guddida ka hortagga coronavirus-ka oo dhan raashin dhan 1200 qoys oo loogu talagalay Elfweyn. raashinkaas waxaanu aad ugu mahadnaqaynaa guddida ka hortagga coronavirus-ka waqtiga ku habboon tahay inay soo gaarsiiyeen waqti baahi badan aan oo qabin inay soo gaarsiiyeen aad baan ugu amaanaynaa waxaan leenahay idinka jasaaysiyo guddoomiyaha gobolka degmada Elfweyn oo ku wareejin doono iyo guddoomiyaha ku-xigeenka iyo xogeeyada la joogaan iyana waxaan leenahay deeqdaasu waa inay gaadhaan dadkii loogu talagalay. anagu maanta waxaan ku rajaynaynaa raashinkii guddida ka hortagga coronavirus ee heer qaran oo hogaaminaya madaxweynaheena madaxweynaha dhammaan ismaaciil saliid intii Elfweyn loogu talagalay oo ah 1200 oo reer oo Elfweyn gudaheeda la siinayo una baahan in guddigu waxay ugu tala gashay dadkii uu saameynta ku yeeshay cudurka coronavirus tusaale ahaan macallimiinta iskuulada waxay nooc doon ahaadeen ay ku malcaamadaha ayaa loogu tala galay marka waxaan leenahay iyo dadkii saameynta ku yeeshay cudurkaasi waxaan leenahay guddoomiyaha degmada raashinkaas sida dadkii loogu talagalay sida uu gaarsiin lahayd adaa ka mas'uula barsaabka ku wareejiyay si dhammaystiran kormeerkan baanu nahay wax kale qaybteeda iyo mas'uuliyadeeda idinka leh cidda la siinayana waa kuwaan idin shaaray insha Allah waxaan leenahay qayb wanaagsan iyo inuu mahad celino cidda noo shaqeynaysa in soo gaarsiisay aad iyo aad u mahadsan yihiin iyo in dadka ka wacyi gelisaan cudurkan marka bixinaysa wacyi gelintu la socoto لأنه وأنا كل اسمه هاي بدك إصابة كوية شيء عذره كني. عبد الرحيم أو يوسف أحمد ماير كدق مدى علفنا ياسنو بقم هاد علي الداغن راشين كا. وسير كحينك سهل يو قدوميها قبل كا راشين دان كوني لا بقول أو قيس أو يسويك مدين قد كهرتك كورونا فيروس oo hogaaminaya madaxweynaha ku-xigeenku waxaan leenahay aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin ilaahayna idinka abaalmaray sida ugu soo dadaasheen ummadiina iyo dadkiina insha Allah waxaanu ku dadaalanaa inaan priority-ga siino dadkii cudurkan saameynta ku jira sida macallimiinta shaqaalaha ganacsatada yaryar danyartii dhibaatada ka soo gaadhay cudurkan iyo kala xidhkan ganacsigooda ku baaba'ay cidii kasta oo danyara wixii ka gaadhana waanu gaarsiin doonaa waxaanu ku dadaalanaa inaan si cadaalad ah ugu qaybino dadkaas insha Allah idinkuna naga fogaan doontana waa naga warhayn doontaan. Maxamed Suuta telefishinka qaranka Soomaaliland Elfweyn.